Asalaamu calaykum asxaabtayda Daryeel Kitchen soo dhawaada gacmo furan maanta waxaa idiin wadaa recipe yar oo fudud recipe-gan oo liga codsaday inaan Soomaali idinku soo kordhoobo sida idinka ballan qaaday marka soo dhawaada waxaan rajeynayaa in insha Allah ka heli doontaan recipe-gan oo ah recipe aad iyo aad u fudud waa baasto yar oo bocor laga sameynayo marka soo dhawaada gacmo furan marka u horeysa waxaan u baahanahay saliid yar waxaan ku darsanaynaa basasha si yar oo dhuudhuub ayaan u jaray sidaa doonta ayaa u jaran kartaa kadib waxaan sameynaynaa basasha yar ayaa wax yar shiilaynaa waxaan u baahanahay bocor zucchini midka dhuudhuuban oo u eg sida qajaarka camal bocorka waxaa u baahantahay laba xabo camal si yar yar oo khafiif ayaan u jaray intaas ayaa isku shiilaynaa markaan isku shiilno waxaan ku daray biyo yar si yar oo maaragtay uu huuro waxaa u baahanahay kabsar caleen ayaan ku dareynaa insha Allah markaan ku darno kabsar caleenta toon waa laga maarmaan cuntada carafna way siinaysaa waana caafimaad intaas ayaan isku yara shiilaynaa insha Allah waxaa la gaaray waqtiga cuntada dhadhan u yeeli lahayn waxaan ku darayaa kabsar caleenta shiidan xawaajigeeda waxaan ku daray barbarooni shiidan qaada ayaa wax walba ku dareysaa insha Allah kadib waxaan ku dareynaa xawaajiga qudaarta oo shiidan si ay dhadhan u yeelato cuntada waxaan kaloo ku dareynaa xawaajiga filfisha shiidan adiga cusbo yar waa maaragtay xawaajiga isticmaalayna yar ayaa ku darsanaysaa kadib intaas ayaa isku walaaqaysaa si fiican ayaa isku dhaxgelinee qudaartana mar walba waxaa isticmaali kartaa ay qudaar aad rabtid laakiin maanta waxaa isticmaalaynaa bocorkan waa qudaar maaragtay markay bislaato si fiican yacni markay yara jilaacdo waxaa lama dareemayo ilmahana mar walba dadka waaweyn buu cunto yaroo iska dheelitiran kadib had inta ayaa isku daboolnay ujeedin suu noqday bocorkii wuu bislaaday basashii way bislaatay xawaajiyadii way yara shiilmeen sidaana haddaa rabtid maaragtay bariis yar u karsan kartaa laakiin maanta baasta ayaa karsanaynaa waxaan kaloo ku daray koosto ama spinach oo cagaaran mar walba maadaama aan baasta sameynayno waxaan rabnaa cuntada inay healthy yara noqoto oona ma aragtay nafaqana ay yeelato so haddana waxaa karsaday baastada ayaa gooni u kariyay baastada midaan penny la dhahaya isticmaalaynaa laakiin baastada rabtid mid dheer gaabgaab macaroni nooca rabtid kadib xawaajigii hadda qudaarteena noo bislaatay waxaan ku gidisanaynaa insha Allah baastadeeni oo biyaha kasoo miirnay wax yar oo biyana waa maaragtay waa u baahan tahay si ay dheecaan u yara yeelato intaas ayaa isku walaaqaysaa haddana dabkana marka u horeysa waa yara shiilay adig markaa baastada ku dartid hadda waxaa u baahan tahay inaad dabka dhexdhexaad ka dhigatid because ma rabna inay baastada naga gubato baastada hadda way bislaatay saan ayay diyaar ku tahay waxaa ku dareynaa hadda yaanyada yaryar ka mida oo yaryariiska haddaadan haysan mida yaryar yaanyada caadiga si yaryar oo u jarjartay ayaa ku darsan kartaa waxaan kaloo ku dareynaa farmaajo ama cheese si ma aragtay mar walba waxaa lahaa cuntada markii farmaajo yar lagu daro ilmaha si ay u xiiseynayaan marka farmaajadan waxaa ku kartaa ama midda cream cheese-kan oo ku darsan kartaa oo sida rootiga maaragtay batarka camal loo marsada taasna waa isticmaali kartaa haddaadan haysanin midaan ayaa ku dareysaa waaba isku dhamaatay baastadeena waa diyaar dabkan waxaa sameynaya waa u gaabine markaa ku dartid farmaajada yaanyadii waxay kaaga baahan tahay inaad huurisid 10 daqiiqo kaleeto kadib baastadeena waa diyaar sidaas ayayna kusoo baxday mar walbana waxaa jecelahay kor inaan uga sharaxo kabsar caleenta maaragtay caleenteeda cuntada qurux way siinay dhadhan yar way ku dareysaa waxa aan kor cad oo ku daadiyana waxaa waaye farmaajada shiidan oo ayadoo la qalajiyey si maaragtay wixii maaragtay waa iska quruxsanaynaa marka ilaahay noo barakeeyo intaa haysanina ilaahay ha siiyo insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen videoga haddii aad ka heshay ha moogaan inaad like button ii taabato subscribe-na ii saar hadda iga cusub tahay mar walbana waxaan rajeynayaa waxaa jeceshay inaan idiin soo geliyo walaalaheen Falastiin ilaahay u gargaaro adduunyada dhibaato weyn ayaa ka socoto waa yawmul jumca mar walba ducada ha ka hilmaamin waxaa sadaqa baxsan kartid u baxsan insha Allah ilaahayna dhibtuu ka qaadaya intaas oo duceyneynaa waxaa socdo xukun Allah ilaahayna waxaa ka baryaynaa inuu ilaahay u dhib yareeyo anagana ilaahay naga dhigo kuwaana qaato ku fahmo dhibaatada socoto ayaga bas ma ahan anaga dhan inaan la damqano marka insha Allah walaalahay waxaa idinkaga tagayaa asalaamu calaykum ilaa insha Allah mar kale wada kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh